si dabiici ah ma u ridi kartaa blood pressure-ka ama dhiigkarka ma u dhigi kartaa adigoo daawo qaadan? haa, waxaad samayn kartaa tillaabooyinka soo socda haddeertaan ama talooyinka ay idin sii doona hadduu ilaah yiraahdo. waxaa ugu horeeya qofka inuu ka bedelo habnololeedkiisa wax qaabka uga bedeli karana waxaa ugu horeeya inuu sameeyo exercise ama aalmiito inuu sameeyo maalin walbo ugu yaraan haddii uu awoodi karo qofkaas waa inuu socdaa 20 daqiiqo maalin walbo una socdaa qaab boobsiisa ilaa iyo intuu kari karo. haddii uu intaas sameeyo markaas waxay baranayaan xididada jirkiisa iyo wadnihiisaba in ay xamili karaan pressure-ka. sidoo kale wuxuu hoos u dhici karaa sida cilmi baaris badan lagu sheegay ilaa iyo 7 points pressure-kiisa. haddii uu ku wado waqti dheer sidaas waxaa imaanaysa si dabiici ah inuu u rido pressure-kiisa ama pressure-kiisa inuu hoos u dhaco. wuxuu sidoo kale wax weyn ka bedeli karaa qofka diet-ka ama cuntada uu isticmaalo. waxaa aad loo recommend gareeyaa ama haddeertaan aad talo loogu soo jeediyaa dadka inay isticmaalayaan cuntooyinka la dhaho Mediterranean food-ka ama Mediterranean diet-ka inuu qofka isticmaalo. badanaa waxyaabaha uu isticmaalayo waxay u badan yihiin cuntooyinka cagaaran ama khudradda cagaaran. khudradaha cagaaranna waxaa ka mid ah number 1 inuu isticmaalo koostada, ansalaatada, broccoli-ga iyo sidoo kale inuu isticmaalo afagaadhada iyo khudaar kaleeto intaas ka badan oo ka mid ah khudaarta cagaaran. waxay fududeeyaan in ay soo daayaan maadada la dhaho nitrate. maadadaas nitrate-ka la dhahona waxay fududeysaa in ay markaas xididadii ay kala furmaan ama ay ballaartaan, taasoo markaas ay u fududeynayso in xididada ay xamili karaan pressure aad u fara badan. si dabiici una markaas qofka haddii uu cunadiisa saxo uu ku ridi karaa pressure-ka. qodobka saddexaad waxaa waaye oo talaa soo jeedin lahaa inuu qofka iska yareeyo isticmaalka cusbada badan ama sideedaba inuu joojiyo isticmaalka cusbada. cusbada haddii uu joojiyo qofka markaas pressure-ka si dabiici ah ayuu u ridi karaa uuna u yareyn karaa in uu markaas dhiigkarkiisa uu aad u kaco. qodobka kale oo aad u caawinaya qofka haddii uu dhiigkar qaba asagana waxay tahay in uu ka fogaado waxyaabaha balwadda ah. balwadda waxaa ka mid ah noocyo badan. sidoo kaleeto qofka haddii uu isticmaalo badanaa sigaarka oo kale ama xashiishada ama waxyaabaha la buufiyo vape-ka oo kale kulligood waxay keeni karaan inuu pressure kor u kaco. qofka hadduu hore u isticmaali jiray inuu joojiyo ayaa aada muhiim u ah. sidoo kale haddii alcohol oo qofka isticmaalo inuu alcoholka joojiyo waxay keeni kartaa pressure-ka si dabiici inuu u dhaco. okay, qodobka ugu dambeeya muxuu yahay marka oo lagu joojin karo pressure-ka inuu markaas aad u kaco? waxaa lagu joojin karaa in qofka daawooyin aan loo qorin oo isticmaalin. sababtoo daawooyinka qaar waxay sameeyaan in markaas xididadii ciriiri ay ka dhigaan. haddii xididada ciriiri laga dhigaa iyadoo pressure-ka jirka uu badan yahana waxaa imaanaysa dhiigkarka inuu cirka isku shareero, hadhowna qofkii dhibaatooyin badan oo xididadiisa, wadnihiisa iyo jirkiisa oo dhan oo u geysto. magacayga waa Dr. Axmed Yuusuf Maxamed, ku takhasusay cudurrada guud iyo neef mareenka. haddii aad u baahan tahay talooyin caafimaad in lagu siiyo sidoo kaleeto lagu baaro la ogaado xaaladaha caafimaad ee cudurrada guud waxaa nagu soo booqan kartaa Horyaal Hospital. aad u mahadsantihiin.